أستاذ كرنتي ومدح سره شركة أسكوني أرضي بدنا هذا داونيسا أرضي فرصة خالية يا أوهشان إن مامور كسرية شركة أسكوني وإذن سوق بيا أما يراعو سأدو أركتان دورشيدي نكو آدن إن تركيا وحكو برتي جامعة ده أنا ودن إذن هايان وجامعة بريفة يكو ببلغا waxa ugu badan dadka ay soo codsadaan waa jaamacadaha private ka ama gaarka ah ma fahamtay marka gudaha ayaa hadda ku sii laabanayna xil intaan iska khasaarin aan gudaha jaamacada sii galno si aan xog badan idin siino marka داوديال waxaa hadda sii galaya jaamacadii Aarel University waa mid ka mid ah jaamacadaha ay geeyaan isla markaasna shirkadda Askuni ay geeyso runtii jaamacadda quruxdan ay leedahay iyo baaxaddan ustaadka ay u socdo u jeedaan jaamacadda aad ay qurux badan tahay hadda gudaheeda ku jira goobtan quruxda badan ee sida u soo jiidanaysa inaba caadi ahayn dadka qaar waxa laga yaabaa inay hotel u maleeyaan oo goobtan quruxda badan hotelka maxaa waaye ma ahan hotel waa kaliya waxbarasho saa u jeedin daawadayaal waa jaamacadii Aarel shirkadda Askuni ayaa halkan keenaysa ardayda Soomaalida ah dal iyo dibad jooga jaamacadda la maraya viewers quruxda badan u jeedaan viewers quruxda badan waa goobtan ardayda Soomaalida ah bartaan kuwa ajnabiga ah u jeedaan jaamacadii waaye meeshan baarkanada u jeedid meel fadhi waaye waa goob quruxda badan sida jaamacadda waaye marka shirkadda Askuni markii aad soo dalbataan waxbarashadeeda oo aad kambaniga ka soo codsataan goobtan waa goobta idin keenayso ardayda nasashada waa hotel iyo goob caalami ah loo maleeyaa mana aha waa kaliya goob waxbarasho ujeedaan qaybta nasiinada ardayda maqaayadaha ma sha Allah Istanbul Aarel University ayaan joognaa mid ka mid ah jaamacadaha ugu tayada badan ee dalkan Istanbul runtii halkan waxaana keentay shirkadda Askuni oo ah shirkad runtii ka shaqeysa arrimaha waxbarashada kaliya ma ahan in ay fiisa soo saarto oo maxaa la dhahaa ardaygii magaalada ku sii deyso runtii ardayga waa laga warqabayaa waxbarashadiisa noloshiisa isaga oo dhan ayaa laga warqabayaa u baahan jaamacadaha private ka ah ee jooga dibadda qurbaha iyo dalkaba fursadii qaaliga ahayd oo saaxiibkiina Xasan Toob idin soo bandhigayo idinka oo wacaya shirkadda Askuni marka eegtid waxa u jeedaa Istanbul Aarel University Istanbul Aarel University waa meesha loogu talagalay marka shirkadda Askuni jaamacaddan xiriir leedahay jaamacado kale oo ka tiro badan ay xiriir leedahay oo u jeedin dhismayaashan dhaadheer ardayda meel ay seexdaan meel ay wax ku cunaan maxaa la dhahaa luqadda Englishkan ku bixisa jaamacad oo hal degmo la eg waaye macnaheedu ma ahan laba villa oo isku dhajiyo laba nus oo ciriiri ah maaha daawadayaal Istanbul Aarel University qaybtan waa qaybta ardayda wax ku maxaa la dhahaa jiiftaan waaye villooyinkan ay u jeedid ardayda oo jaamacadahan waa private halkaan ay wax ka cunaan halkaan ay jiiftaan lacagta sanadkii iska shuwayaan waalidiinta luqadda Englishkan ku baxayaan marka waxbarasho goobta wax lagu baranayay waxa daba socoto villooyinkii jaamacadda lahayd waa hal degmo ayay la egtahay jaamacadda gudaheeda haddii aan waa duuweena dhahno ma gaareyno cafeteria waaweyn ku yaalo meel la fadhiisto wax lagu cuno lagu cunteeyo wax lagu barto waay caalamka oo dhan ayaa wax looga imaada jaamacadahan marka Soomaalida na daawanaysa shirkadda Askuni kaliya ma aha inay fiisa soo saarto magaalka lagu geliyo admission lagu soo saaro bax lagu dhaay maaha waxbarashadaada la controla waxa laga caawinaa imtixaamaadka waxa laga caawinaa wax badan waxa laga caawinaa talooyin lagu siinaa marka Istanbul Aarel University mid ka mid ah riyadaada waxbarashada adiga oo soo maraya shirkadda Askuni waa maasantii